kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa walaalkiin Cali Maxamed Jaalle oo alaabada kala soo xiriira magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaan dhamaan walaalaha muslimiinta ah leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair maadaama lagu jiro maalmaha farxadda leh oo qiimaha leh oo muxuu ahaa ubadkeen aad u faraxsan yihiin inta dhar qurux badan u soo iibinay ay maanta ku xarkoonayaan waxaa muhiim ah inaynu xasuusano dhallaanka agoomaha ah ee aan heli karin wax ay ku ciidaan dhallaanka yararka ah ee waalidkood uu ku geeriyooday dhibaatooyinkii dalkeena Soomaaliya soo maray dhallaanka waxay u baahan yihiin maanta in la daryeelo qofka muslimka ah waa qofka ka fakara dadka kala danahooda ka fakara qof wali waxaa muhiim ah inuu hareerihiis u eego ee uu yiraahdo maxaa dhallaanka yarka agoomaha maxaad u heli kartaa maxaa dariskaaga xaalkiisu siduu yahay war dariskaaga miyay quraacdeen inuu yiraahdo waa muhiim waa in muxuu ahaa farxadda inuu dareemayno oo dhallaankayna ay la faraxsan yihiin waa in muxuu ahaa ay inala wadaagaan agoomaha agoonka oo la daryeelo agoonka oo madaxa loo salaaxo waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu helaayo Ilaahay jannadiisa iyo naxariistiisa haddaba walaalkayga qaaliga ah miyay habboon tahay inaad dadka isaga ilowno oo muxuu ahaa is ilowsiino dhallaankayna ay qoslayaan iyagana laga yaabo inay murugo ay xaafadda ay la joogaan oo ayna soo bixi karin taa ayada ma wanaagsan walaalayaal si walaalaha dhibaataysan aynan u cuqdadoobin waa in muxuu ahaa aynu ka qayb qaadanaa sidii aynu u daryeeli lahayn waa inaynu ciidsiinaa qof walba ciduu awoodi karo ee muxuu ahaa dhar u iibin karo ama muxuu ahaa uu daryeeli karo ama uu quudin karo waa inuu wuxuu sameeyo qof walba wax awoodiisa waa inuu sameeyaa dhallaanka oo la daryeela waxay ka mid tahay waxyaabaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala loogu dhawaaday ka mid tahay ummadii isgargaartana Ilaahay baa gargaara laakiin haddaan isgargaari weyno oo keena danta yar leh dhibaataysan aynu gacanta qaban weyno waxa inagu dhacaya inagana nimcada Ilaahay uu nasiiyay Ilaahay uu inaga qaadaya nimcada Ilaahay si Ilaahay inoogu siyaadiyo waa inaynu sadaqada iyo ihsaanka iyo dariska iyo agoomaha iyo dadka dhibaataysan ee tabaalaysan la taageeraan weliba waad ogtihiin marxaladda uu ku jiro dalkeena Soomaaliya shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta dhibaatooyinkii cudurrada ka jira maanta muxuu ahaa qof walba wuxuu u baahan yahay qof walaalkiis inuu garab istaago walaalkaagu aad garab istaagtaa waxay ka mid tahay waxyaabaha Ilaahay uu inagu gargaaray walaalkiin Cali Maxamed Jaalle wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh